anigu hal su'aal baan qabaa sida uu sharcigu u dhigay saad noo sheegteen haddii aan miisaaniyadda la ansixin wasaaraddu bil bay sharci ahaan ku sii shaqayn kartaa si ku meel gaadha miisaaniyaddanna waa miisaaniyaddii sanadkii hore shalay waxaad u ansixiseen waxaad muddo kororsi ama aad xukuumadda ama madaxweynaha siiseen inuu bil dib uga sii dhaco xilligii xukuumadda la soo dhisi lahaa inta 6 bilood lagu shaqayn lahaa miisaaniyaddii sanadkii hore iyadoo ay jiraan isbedello badan oo deegaanada ka jira maxaa nagu kalifaya ma sidii shalay bil ama laba loo kordhiyay inta 6 bilood miisaaniyad sanadkii hore ah oo aan cidi eegin oo aan sanadkan ahayn inta la ansixinayo ma inta xukuumadda la soo dhisay in leeg loo ansixiyo maadaama uu aysan feri ama miisaaniyaddan baa sharci noqonaysa ama wixii aad shalay samaysay baa sharci noqonaya labadaa mid baa qaldan haddii marka ay saa tahay maad sidii shalay oo kale ansixisaan intaa wax kale oo aydan sharci u haynin aad meel marinaysaan waa salaamaya shirgudoonka iyo xildhibaanadaba iyo martida joogta waxa meesha yaalla waxa weeye gudoomiye waa miisaaniyad sanadkii hore oo xildhibaanadii cusub intooda badan aanay arag akhriinna 6 biloodna la rabo in ummadda lagu dhaqo dhaarna waanu marray wax ku jirana war uma hayno xitaa nalama siin 4 saacadood ku soo akhrino doodna la gelin maayo laga wada hadli maayo duuduub ha lagu liqo gudoomiye halkani maaha wasaaradda maaliyadda iyo madaxtooyada iyo halkani waa golihii wakiilada shacabka khaladaadka ay executive-ku leeyihiin iyo dibidhacooda iyo halkan looga doodi maayo anigu waxaan qabaa mudanayaal isbedello badan baa yimi xitaa waxay tahli kari weyday wasaaradda maaliyaddu inay lifaaq ku soo darto in ciidamada difaaca ku jira qoonda lacageed iyo difaac loogu daro waxa kan ku jira halkan waa intaan sool la xorayn oo aan aagaga la gaadhin ciidamada gurmadka ka yimi xaafuun iyo garaacad iyo boohoodle iyo dhahari iyo laasqoray wax loogu talagalay ma jiraan ciidamadii ka qayb qaatay halganka ee puntland in yar ka mid ah ayay ugu jirtaa baan u malaynayaa maba aanaan akhriinba xitaa ma garan karo xitaa ciidamada wax la siiyo wax caafimaadka la siiyo wax waxbarashada la siiyo waxaana akhriin ma ansixin karo oo aan laga doodin waxaa tiri aan laga doodin gudoomiye anigu waxaan rabaa xildhibaanada ka rabaa in wax kan aynu eegno at least horta bal miisaaniyaddan aanu akhrino kadibna 3 bilood wax ka badan inaan la ansixin miisaaniyad ku meel gaara 3 bilood waayo waqtiga iyo duruufuhu way isbedeleen waxay ila tahay mudanayaal 3 bilood muddo ka badan inaan la ansixin miisaaniyaddan waayo dowlad keertee kara miisaaniyada ansaxsan ma siin karo wasiir dhabancad iyo maaliyadda kuu noqon doono ma naqaano isagu male wax xisaanada ma aanaan ansixin dowlad marka dowladda aanaan ansixin 6 bilood ha iska shaqayso oo lacagtii ummadda say doontaa ka yeesho war inama qabatad ummadda waynugu dhaaranay wax laga bedela waxa kan waa islaamaya thank you xildhibaanada sharafta leh iyo guddoonka golaha wakiilada anigu waxaan qabaa horta xaq bay u leedahay xukuumaddu inay codsi soo gudbiso in muddo loogu daro si xukuumad loo soo dhiso miisaaniyadda hadda taallana waa miisaaniyaddii 2023 lagu soo shaqeeyey oo golaha wakiilada idinku horreeyey kuraasaad ku fadhiya soo madhay juun baarlamaanka furmaya iyo hadda oo bishii koowaad noo dhammaatay January noo dhammaatay iyo xukuumadda kala wareegeeda iyo waqtiga anigu ma qabo sida gudoomiyuhu sheegay in 3 bilood iyo 4 bilood ay ku filan tahay way kala wareega xukuumadda la dhisayo iyo wareejinta ama bisha afraad ku dhawaanaysa maadaama aan juun soo imaanayno miisaaniyadda miisaaniyad 2023 lagu soo shaqeeyay ay tahay oo akhrintii koowaad madhay akhrintii labaad madhay golaha wakiilada kuraastan ku fadhiyeen ay ansixiyeen anigu waxaan codsanayaa in sida gudoomiyuhu u sheegay ama soo jeedinaya sida guddoonku u sheegeen juun loo daayo fadhiga dambe Ramadaan baa la gelayaa waa sax
waqtiguna waa iska kooban yahay ciidamada saaxiibada xildhibaanadu sheegeen ciidamada dowladda Puntland ee sanadkii dhamaaday hadda qaramaysan dowladda u qaramaysnaa miisaaniyadda waa ku jiraan wixii kale oo daruufo gooni ku jiraan waxay u baahan tahay in sharciyo la mariyo iyada laftigeeda waqti u baahan marka anigu waxaan dhihi lahaa baarlamaanku dee cod buu leeyahay codkaas buu ku kala bixi doonaa guddoonku waxaan codsanayaa inay cod gelisaan miisaaniyaddana xildhibaanada sharaftana waa tii xildhibaanada ansixiyeen in la ansixiyo oo 6 bilood loo ogolaado xukuumaddu ku sii shaqeyso sidaa darteed hadda berri bisha labaad waxaan u baahanahay wax dalku wuxuu ku sii shaqeeyaa loo baahan yahay haddaan miisaaniyadda marka la fasixin marka waxaan codsanayaa guddoomiye in cod la geliyo waqtigaasna la siiyo miisaaniyadda 2023 in lagu sii shaqeeyo waa maasantiin xildhibaan qaalib qodobka uu sheegay oo ah waqtiga wuxuu ka hadlay nuxurka haddaan soo ururiyo waqtiga waxay ku fiicnayd in macnaha la soo koobo oo aan laga dhigin 6 bilood oo dhan ayuu sheegay sababaha aan ugu aragnay inaysan macquul ahayn hore baan u sheegayo iyadoo baarlamaanka laftiisu hadda doorasho soo galay waqti badan buu soo galay waa daalan yahay in intaynu hadda markii la kala tago ilaa iyo February dhamaadkeedana haddana waqti yar oo breegan qaadanayna xukuumadda la sugaaya haddana in bil kadib la isugu yeero baarlamaankii misana mar kale fadhigii kalena uu sugayo waa culays qodobka labaad oo kale waxa weeye haddaan hadda niraano April baan qabanaynaa bil iyo 20 cisho iyo 15 cisho xukuumad joogtay ama wasiir joogay uu ku diyaarin karaa shaqo miisaaniyadeed oo faahfaahsan oo maangala iyadana waa maya sababtoo ah March markay hadda gasho xukuumad disku xil wareejintii baa bilaabanaysa muddo qaadanaysa rabadaan bay gelaysaa waa shaqo dheer iyadana marka anigu waxaan qabaa cod baan gelinaynaa aan ku miisaaniyadda aan ansixino miisaaniyad faafin ku soo baxday xisaabkeedii horena yaal tixraacana la weeyay oo gole martay aragtida xildhibaanka labaad xildhibaan Abdishaaq Shariif uu ka hadlayay mid horta waa codsan lahaayo siiqada golaha lagaga hadlayo inay noqoto siiqad baarlamaan oo aan la oran xukuumad iyo waxa meeshan la isku eedeeyaa ma yaalin mid labaad oo konseynka ka keenay waxay ahayd inuu yiri xildhibaanka mudanuhu in dood la geliyo oo laga doodo weeye dooda waxa la gelinayo iyo waxa kale waxay ku xiran tahay waxa horiyaal baarlamaanka codsi baa inoo yimi jawaab baa inoo taal miisaaniyad cusub oo akhrin u baahan oo aynu waxna ka bedeli karo waxna ku biirin karaana ma taal haddaan hadda doodno iyo haddaan ilaano la soo akhriyo guriga lala aado de miisaaniyaddan waa miisaaniyad hore codsiga inoo yaalna waa miisaaniyad hore oo daabacan miisaaniyad cusub oo madaxyadeeda aynu contribute gareyn karo oo oran karo madaxaanu waa ku yar yahay sectorka madaxaanu waa ku yar yahay waxan waa ay waqti bay u baahanta iyo asbaabaha aynu sheegnay u baahanta marka iyadana sababtaan u niri dood dheer in la geliyo ma wal waan xildhibaanada hadda u ogolaanay saasay ahayd ma ahayn wax la qarinayn buugiina waa haystaan miisaaniyadda bari lagu xisaabtamayo dawladda saasay ahayd waxay ahayd waxa in hor yaala baan ahayn wax doodi waa codsi doodaha miisaaniyaddu marka way noo iman doonaa cod baan gelinaynaa in miisaaniyadda 2023 lagu sii dhaqmo ilaa bisha June inta ogol fadlan gacanta taaga xildhibaanada diidan inaan ku sii dhaqano mudanayaal fadlan gacanta taaga xildhibaanada ka aamusay mudanayaal waxa fadhiga maanta 56 mudane waxa ogol ugu codeeyay in miisaaniyadda 2023 lagu sii dhaqmo ilaa bisha June 54 mudane diidmo waa hal xildhibaan waa ka aamusay sidaas ayay marka ansax ku tahay miisaaniyadda 2023 ayaynu ilaa bisha June ku sii dhaqmaynaa bisha June waa in miisaaniyad cusub la keenaa golaha oo aan procedureski dhamaystirka marina